gobolka xaaladiisa dan kaaga waramo xaaladu waa iska degantaa boqolkiiba boqol waxyaalahaasina meel kasta way ka dhacaan oo qadar rabbi bay iska ahayd haddana xaaladu waa iska degantaa boqolkiiba boqol kasuku dhinaca amniga maxaa tallaabooyin ah oo ciidamada booliiska ay qaadeen oo dad lagu qabtay ama waxun lagu daba joogo waa tallaabooyin badan baan qaadnay oo magaalada waxaa ka jira waad ogtaa baryahan dambe in lagu sameeyo dabagal wixii dhacay dad badanna waa la soo xirxiray qaarna hadda way xiran yihiin qaarna wixii dambi lagu waayay waa la iska sii daayay runtana hadday ka soo bixi doontaa insha allahu sidaasina yani ahaan doontaa ilaa xal laga helo taliya muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray amaro ay soo saarayeen maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana ku adaa in odayaashu ay iska soo diiwaangeliyaan deegaanada ay joogaan arrintaasi ka ciidan ahaan maxaad ka leedihiin sidee soo aragtaan horta arrintaasi waa arrin fulaynimo ciddii ku dhaqaaqday iyagoo jooga wadankoodii iyo dalkoodii oo si nabadgelyaha ku jooga hadday kuwa dhiigga dadka banaystay ay u caga juglayn imaada waxay la tahay ninkii aada wuxuu noola mid yahay iyaga shaki xataa ma la gelinayo ma yahay iyo ma ahan midna ma ahan wuu yahay ciddii aadana waxay noqon doontaa inay ayaga la joogaan aysan anaga noo imanin ma jiraan gobolka mudug cid oday dhaqameedyada ah oo ka tagtay ee aaday dhulka shabaabku ay gacanta ku hayaan kulley way jiraan dad dhowr qof oo aaday laakiin waxaan malaynayaa inay ayaga la joogi doonaan sababtoo ah qofkii shabaab aaday waxay la tahay macnaheedu waxa weeye inuu shabaab kale yahay waayo qofka u tagaahi kama soo noqdo iyagoo aan mabda'ooda soo siinin maxaa idinkaga qorshaysan ama meel idinkaga yaala wax nooga qorshaysan de waa cadowna waa iska dhicin buu wax ku leeyahay cid allaale ciddii aadana waxay noola mid tahay kuwa nala diriraya oo dadka dhiigooda banaystay iyagayna la mid yihiin waa gartay kuwa haddaan aadin balse laga yaabo inay aadaan maxaad ugu digaysaa ayaga waxaan uga digaynaa inaysan aadin oo dalkooda iyo dadkooda iyo ciidankooda iyo wax walba inay aaminaan dalkooda ciddii aadaana waxay la tahay inaysan ugu soo noqon doonin odayaasha dhaqanka waxa ay ku andacoonayaan aadista shabaabku inay sabab uga dhigayaan ammaankooda iyo nafsadooda in ay ku badbaadsanayaan naftay badbaadinayaan waaye haddayse wax dili karaan annagu 24 saac ayagaan hortaaganahay qori baan la hortaaganahay cid aan ka haybaysanin oo ka baqaynaana ma jirtee sababta looga baqayaa maxay tahay waa in la isweydiiyaa iyada laftigeeda waayo qofka maanta nafteeda aniga gacanta ku hayaa oo daqiiqad ka mid ah iigu dari kara nolosha in ilaahay ii qadaray hadda ha iga qaada aniga waxaan kala soo horjeedaa dagaal nabadiid weeye dadka muslimka iyo Soomaaliya oo dhan dhiigooday banaystaan cid ay deynayaan saqiir iyo kabiir ma ninka u haysta inay deynayaanna wallahi nasa ku deynin ugu dambeyn waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali ha u istaago sidoo iskaga dhicin lahaa iyaga